baddi afkeeba saaran tahayba meel laga galaa sawir meel lagu Badadeena waa aragnay in mar badda kacsan tahay marna ay degan tahay, balse ma ogid inuu dayax ka dambeeyo arrinkaas. Si aan u fahanno waa inaan isu xasuusinaa shay walba oo weyn oo space ku jira inuu leeyahay gravity ama cufis jiidad. Dayaxa iyo dhulkana maadaama ay isku dhow yihiin waxay isku dayaan inay is soo jiitaan, balse maadaama uu dhulku ka culus yahay dayaxa aad uma soo jiidan karo. Sidaa daraaddeed wuxuu dhankiisa usoo jiidaa biyaha badda maadaama ay yihiin dareere, markaasna waxaa ka dhashay in biyaha badda ay soo buuxiyaan xeebta korna ay u kacaan. Laakiin arrinka intaas kuma eka, waxaa jira in badda ay 2 mar xeebta soo buuxiso maalinkii. Maxaa sababay? Sababtu waxay tahay maadaama uu dhulku wareegsan yahay, marka biyaha dhanka dayaxa xigaan ay u bataan dhanka badda, sidoo kale wuxuu dayaxu soo jiitaa dhulka si ka yar biyaha, taas oo sababaysa in biyaha dhanka kala xiga uu dhulku wax yar ka soo tago, taas oo dhalinaysa in badda dhanka kale ayadana ay ka kacdo. Taasna waxay ka dhigan tahay in xeebaha ay 24 saac iyo 50 daqiiqaba ay la kulmaan 2 mar oo ay baddu kacsan tahay oo loo yaqaano high tides iyo 2 mar oo ay baddu degan tahay oo loo yaqaano low tides. Laakiin qoraxdana ayadana soo ma laha cufis jiidad. Haa dabcan weliba keedu wuu ka weyn yahay kan badda, balse maadaama ay naga fog tahay saameynteeda ay badda ku yeelanayso way ka yar tahay tan dayaxa. Waxaa saameynteeda la ogaan karaa marka dhulka, dayaxa iyo qoraxdu isku soo aadaan oo uu dayaxu buuxo ama marka uu cusub yahay, ayadoo ay baddu aad u kacayso si ka weyn sida caadiga ah, taas oo loo yaqaano spring tides. Waxaan rajeynayaa inaan wada fahnay oo hadda macno sameynayso. Haddii aad aragtid sheegashooyin ama dhacdooyin dabiici ah ila soo wadaag si aan u aragno waxa uu cilmi ka dhaho.